السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن ومالين سبتئة وصباح سبتئة. تاريخنا أيكو بيغانتهاي 19 ديسمبر 2020. إنا لله وإنا إليه راجعون. موضوعنا الرباء maanta inaan ka dhigo yay dani ugu jirtaa dagaal sokeeye. mowduuceena saaka oo sabti ah waxaan rabaa inaan ugu magac daro yay dani ugu jirtaa dagaal sokeeye. ficlan jawaabta annagaana laga rabaa haddaan nahay shacab weynaha Soomaaliyeed. waajibna naga saaran saan mar walba ku celceliyo wadankeena iyo dadkeenaba. ilaah baa mahad iska leh naga dhigay dad muslim ah, dad isku af ah, dad isku midab ah, dad isku diin ah. allahaas ayaan u mahadinaynaa mar walba daa'iman wa abadan. walaalayaal, saan mar walba u sheego duulaan baana lagu yahay. dariskeena Ethiopia iyo Kenya waa labo wadan oo gaalo xukunta, dadkoodan ay u badan yihiin gaalo. الكفر ملة واحدة. قالوا أيجو أمبا قالوا إسلاء أيجو أمبا مرولبة إسكو جنجيرة أو إسا ساعدة. كينيا إثيوبيا ولا ليال قال أيا صور ريحيسة دبدك صور ريحيسة. mana noo rabaan inaan annaga wadankeena nabad noo noqdo, inaan wadankeena aan ku naaloono, marna suurtagal ma aha, nooma rabaan. marka dadka ayaga ah ee gaaladu ah ay noo heshiiyeen, ay u heshiiyeen geeska Afrika ee Soomaali la yiraahdo, sideen dhagartooda ugu badbaadi karnaa way su'aasha isweydiinta mudan walaalayaal. أول شيء أن أقبض بادي كرنا وحي تهي إن إلهي أكاشنه. إلهي مركان أكاشنه كبعدي أنغان أن إسقع عن قبسنه أن هشينه وذا هشين دبئه أن يلانه محايلي حدانا أنغا هشينين وأنا لقد نحفى إذي سنة يا ولا ليال. sida hadda noo muuqataba hadeertaan markii dowladda Soomaaliya uu hadda madaxweynaha ka yahay Farmaajo uu xiriirka u jaray wadanka Kenya walaalayaal, isla maalinta ku xigtay aheedan rajaynaya madaxweynaha Somaliland موسى بيحي isla markii wuxuu tagay Kenya walaal. موسى بيحي Kenya markuu tagay dabcan wuxuu la kulmay dhigiisa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. maxaa keenay wadan oo xiriirka u jarnay in shakhsi maamul goboleed ah ordah oo Kenya u taga maxay tahay maxaa lagu fasiran karaa suurtagal ma ah. aqligana ma nasiinaya aqligaas oo saliimka ah bil aadamka aqligiisa saliimka ah see marka ninka asiga ah yani shucuubtiisa say ku taageeri karaan maxay ku taageerayaan macna waa su'aasha isweydiinta mudan walaalayaal. wadankan
Soomaaliya la yiraahdo walaalayaal duulaan baa lagu yahay. waxaan rajaynayaa inaan gacmaha iswada qabsano haddaan nahay Soomaali dhammaanteena. war qof kasta wuxuu tabanay miiska soo saaraya. yaa isdagaalsan hadda? ani qof isdagaalsan ma ii muuqato. Somaliland oo dhul Soomaaliyeed ah iyo maxaan ku magacaabaa Soomaaliya, yacni isku imaada wada heshiiya bas. yaana heshiisiinaya? magaalana heshiisiinaysa oo rabta waddankeena inay saan ahaado burburkan ku jira rabta? miyaana heshiisiinaysa? sayna dhahaya markayna heshiisiinayaan? aqliga saliimka inuu shaqeeyaan rabnaa walaalayaal. annaga dhexdeena haddaan heshiin weyno, qof bila aadan kale noolahan koonkan ku nool oo na heshiisiin kartaa wallaahi inaysan jirin. ma waxaan rabnaa markiina la heshiisiinaya in qofkeen lagu qanciyo lacag ama mansab? waa sugaynaa leh ilaa fiinaawiito walaalayaal. waxaan rabnaa dhexdeena inaan heshiino, gacmaha iswada qabsano. saasaana laga doonayaa walaal. marka aan usoo laabtay aanan ku xeel dheeraanin, waqtiga iga dhammaan raba. yay dani ugu jirtaa dagaal sokeeye in waddankeena uusaan ahaado? yay dani ugu jirtaa? waxaa dan ugu jirta walaalayaal caalamka oo idil intiisa badan. walaalayaal saan ognahay waddankeena khayraad badan ayuu ilaahay ku maneestay. baddeennii waa layska malaaygiisa khayraadkiisa waa layska guranayaa. barigeena waa aragteen, ciiddeena la gadanayaa, la qaadanayaa walaalayaal. ciiddaas annaga qiimo weyn nooma laha, laakiin adduun weynaha qiimo weyn ayuu agteeda ka leeyahay. ciiddaasi oo dhulkeena ilaahay ku beeray ee barakaysan, yaanyadii hooyada ay ku soo daadisa bannaanka isla markii way soo dhalanaysaa walaalayaal. khayraad nooma yaraa. ciiddeena la guranayaa, geedaheenii dhirteeniyaa la guranayaa walaalayaal. marka waxaan rajaynayaa aqliga saliimkeenna ah inuu shaqeeyo. mar walbana waxaan u taaganahay sidii Soomaaliya ay ku midoobi lahayd, ay ku wada heshiin lahaayeen ayaan mar walba u taaganahay. yaana ka qayb qaadan doonaa biidnillaahi kariim. dhexdhexaad ayaan ahay insha allahu tabaaraka wa tacaala. Soomaali waan ka dhashay alxamdulillaah. waxaan rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka na wada waafajiyo oo waddankeena nabad nooga dhiga walaalayaal. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.